iyadoo ay muddooyinkii u dambeysay dalladda UNITA ay ku hawlaneed isla markaasna ay marar kala duwan tababaro u qabatay haweenka dadka laga tirada badan yahay iyo weliba kuwa naafada ah tababaradaas oo ujeedooyinkiisu ahaayeen sida ay uga qayb qaadan lahaayeen talada iyo maamulka dalka isla markaasna ay u noqon lahaayeen dad go'aan qaadasho leh oo u tartami kara kuraasta ugu sarreysa dalka. Siraad Nuux Cawaale oo ku hadlaysay afka haweenka, Foosiye Jaamac Cilmi oo ku hadlaysay afka dadka naafada ah iyo weliba Sayna Maxamed Jaamac Dalbac oo ku hadlaysay afka dadka laga tirada badan yahay ayaa ugu baaqay saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda Somalilandba in looga baahan yahay sidii ay talada iyo maamulka dalka uga qayb qaadan lahaayeen haweenka dadka laga tirada badan yahay iyo weliba dadka naafada ah. anigoo kamid ah guddiga laga soo doortay dadkii tababarka loo qabtay waxaan baaq u dirayaa maxay haytay xisbiyada iyo dawladaba inay ka qayb galiyaan maxay haytay saddexda qaybood ee kala haweenka iyo naafada iyo dadka laga tirada badan yahay sida door muhiim ah oo loo baahan yahay ay ku yeeshaan maxay haytay doorashooyinka oo maxay haytay ay ku soo baxaan golayaasha oo dhan sida baarlamaanka oo kale oo ay ka maqan yihiin booskoodii banaan yahay oo maxay haytay aan hore looga qayb galinin taasaan maxay haytay maanta baaq ugu dirayaa dawladda iyo saddexda xisbiba inay door muhiim ah ku yeeshaan oo la qaato saddexda qaybood waa haweenka naafada iyo dadka laga tirada badan yahay. waxaan ka socdaa anigu qolada naafada ayaan ka socdaa hadalku waxa weeyaan dadka naafada ah in la taageero saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa oo aanu baaq dheer u diraynaa dadka naafada ah in la hirgeliyo oo laga qayb geliyo talada dalka laga qayb geliyo oo qofka hankiisa isa soo taaga ee naafada ah aan lagula yaabin oo la taageero oo hore loo mariyo oo sare loo qaado. anigu waxaan ka tirsanahay dadka laga tirada badan yahay wax ka tira badan ma jiraan waa takoor malaa adna takoorteen waxa weeyaan kama muuqdaan dhulka hadday ka muuqdaanna wayba ku yar yihiin waxa weeyaan waxaan nahay guddidii laga soo xushay aniga oo iyaga ka tirsan waxaan doonaynaa sida dadka kaleba uga muuqdaan inay uga muuqdaan oo la taageero oo la jiido haddii ayagu soo bixi waayaan xataa in lala taliyo oo la soo saaro wacyigelin badan la siiyo lana caawiyo la taageero. anagoo ah guddidii laga soo dhex doortay trainingkii la qabtay tababaradii la qabtay waxa aanu halkan aan baaq uga soo jeedinaynaa xisbiyada qaranka iyo dawladda Somaliland labadaba inay ka qayb galiyaan siyaasadda iyo qorshaha qaranka iyo horumarkaba inay ka qayb galiyaan haweenka dadka naafada ah iyo dadka laga tirada badan yahay. sidoo kale maray ka jawaabayeen su'aal nuxurkeedu ahayd qaab noocee ah ay uga qayb qaadan karaan tartanka iyo maamulka dalka ayaa waxaadaladoodii kamid ahaa sida tan. waxaan mar labaad baaq u dirayaa in maxay haytay saddexda qaybood aan hore u soo sheegay ay laga qayb galiyo maxay haytay meeshoodii oo ay ka maqan yihiin booskoodii ay lahaayeen oo aan hore uga qayb qaadan hadda laga qayb galiyo waxa weeyaan haweenka naafada iyo qolada laga tirada badan yahay saddexda anigoo jamcinaya kamidana shacabka waliba maxay haytay door muhiim ah ay ka qaataan shacabku iyagoo soo dhaweynaya arinta aanu maanta soo dhignay. waxa xalo aanu arkaa marka ugu horeysa horta qofku hadaanu kalsooni isagu bini'aadmiga isku qabin cidima taageerayso aanu soo bixin waxaan qabaa horta marka ugu horeysa inay iyagu kalsooni isku qabaan oo ay soo baxaan siiba dadka naafada ah aanay ka xishoonin oo ka baqanin in la yiraaho waad cagalada ku cagaha lahaaba wax waayay adigoo cagala ama in dhala sideebad wuxuu doonaysaa inaanay is oranin in lagu yiraahdo aanay ka baqanin ayaan jecelahay. sida horeba dadku uga dhawaajiyeen saddexda qolo ee ah haweenka dumarka iyo dadka disability-ga Somaliland marka loo eego 85% ayay ka yihiin xisbiyada qarankuna waa dadka inta badan markay doonayaan cod ay raadsadaan ay taageereystaan marka waxaan u sheegayaa xisbiyada qaranka in ay siyaasad cad ka yeeshaan dadkaas markay hankooda soo yeeshaan ay soo sharaxaan ay kana siiyaan
in xilal ay u magacaabaan ayaan kula talin lahaa.